السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أو وناكسن دمان أقيارتا قيمي قدرنتا إنا مدن أو كسوغن ميل والبو أو دنيدان دعالدي إذا كميدا وحان إذن لين هاي كسو دوادا جنال كينا ريحان جنال ميل والبو أجوكتان عويسين وناكسن عاو هبينيمو تلادا أي سوغريسو isniina ay sii baxayso taariikhduna waxa ay ku asteysan tahay 4 bisha 9 ee September sanaduna waa 2023 saacada geeska Afrikada barina iminka waxa ay gaadha ku haysaa ama garabka ay ku haysaa 8 iyo qadar 40 daqiiqo ah. ku soo dhawaada meel walbo aad joogtaanba channelka Reexaan Channel. Caawana waxa aynu soo qaadan doonaa ama casharkeena aynu ku soo qaadan doonaa qiso yar oo kooban oo ku saabsan macallim iyo ardaydiisa. Macallim ay jecel yihiin dhammaan ardaydiisa iyo ardaydiisa ayaan ku soo qaadan doonaa iyo macallinkaasi. Marka qisadaasi dhamaanteed waxay ku saabsan tahay macallin iyo ardayda wax uu dhigayo ama wax uu barayo. وأنا بلابنا قصتني أن هرء جذوه وقالنا تدور أحداث هذه القصة حول معلم محبوب من الطلاب. تدور أحداث هذه القصة قصة دعوين كذا وحي كدل وريجيان أما يكسب سينهم با حول معلم أرنت معلمك أما أرن معلم أما معلم أي كسب سنتاي محبوب من الطلاب وأرضيدنا أي جعلهين. قصداني دعوي ذا وحي كساب سنتا ليري معلم وأرضيد أي جعلهين. في يوم من الأيام مالمها كمذا دخل معلم كي أيا صوغري أما جذاه أصوغري يالفصل جلاسك أما فصلك أيو جذاه أصوغري معلم كي وطلب من الطلاب أرضي أيون كعصدي أن يكتب إن أي قرآن أم أن يكتب إن أقره كل طالب منهم أرضي كستا أو أي كمذاه إن أقره أفضل أصدقاء له صاحب ذا أقوى راكسن أم أوفي عن في هذا الفصل جلاس كان أو كلها إن أقره معلمك waxa uu ka codsaday ama uu ka dalbaday ardayda in ay qoro arday kasta oo ay kamid ahay dhammaan saaxiibada ugu fiican oo ku leeyahay fasalkan inuu qoro magacyadooda in uu soo tixo wa an yaquuma sidoo kale wa an yaquuma kullu daalibin arday kastaahina inuu u istaago bikitaabatin in uu qoro ama qorid inuu u istaago wuxuu qorayaa أجمل الصفات ضمان تلمامها أقوى ناكسن التي توجد في صديقه ضمان تلماموين كأقوى ناكسن أو لغيرك وصاحب كيسا إن أقرأ تانا وعلى عصر هذا مركونا مقعيدا صاحبتي سأقفي عن أجلاسك وكلها إنه سأقرأ إيو إن أقرأ ضمان تلماموين كاللغيرك صاحبتي سا أما صاحب كستا تلماما لهلي كرو إنه صقره. تعجب الطلاب أرضيدي ويليا بين تعجب الطلاب أرضيدي وحيليا بين من السبب الذي دفع المعلم سببت ومعلمك أسوق بيا إلى القيام بذلك أرنكاس إن الله سميه سببت معلمك أسوق بيا أي ليا بين وحرضي معلمك أرنتاس وأقول ليه ay la yaabeen in la sameeyo arintaas ay la yaab ku noqotay in saaxiibo ku ugu fiican fasalka arday kasta oo ku leeyahay fasalka in la soo qoro kadibna tilmaamooyinka laga heli karo oo aadka ugu fiican in soo qoro waxa si way la yaabeen ardayda walaakinna ma sayashay ayagu nafadu waxay fuliyeen oo ay sameeyeen ma dalabahu minhum waxa uu ka codsaday المعلم معلمك
ولكنهم نفذوا وحي أوفيين أو أي فليين ما طلبه منهم وحا أو كعصدي المعلم معلم وحي أو كعصدي أو إن السمايو أي أهد أو خلص سمايو يري أي فليين أو وي سمايين في نهاية الحصة حصة مركي دماتي أما جبا أي نقطة جبا دي الحصة اللي سو جاري قام المعلم بجمع الأوراق معلمكي وحا أو سو أروريي وراقده waraaqadii ardayda ee qoreen ayuu soo wada aruuriyay soo wada aruursaday markii ay qoreen kadib ayuu ardaydii ka soo wada aruursaday waqaala markaas waxa uu yiri oo ardayda oo ku leeyahay waaye oo ardayda oo ku dhahay sawfa adli'ukum ala natiijada ayaan idin soo bandhigi doonaa ama idin socodsiin doonaa fi xissati yawma ghadi xisada maalinka biritaa oo aan ku leeyahay ayaa natiijada idin soo bandhigi doonaa ama idin socodsiin doonaa taa ogaada sida ayuu ku yiri oo maalinka biritaa xisada aan ku leeyahay ayaa natiijada waraaqadaha idin ka aruuriyay idin soo bandhigi doonaa oo idin tusi doonaa kaana dullaabu ardaydii markii waxay ahaayeen mutashawwiquuna kuwa u hilowsan oo u hamuun qaba oo u baahi qaba aad u jeclaysanaya لرؤية النتيجة أركتيدا نتيجة أي آد أرديدا وهمون قوين أم آد أوجع لي سنين النتيجة أي أركان يا أرديدا آد وذربين بالفعل جاء اليوم التالي بالفعل ربحانتي جاء اليوم التالي مالك حكتي أيات ميت أو لقاري مالك بلنتو هيت أيا لقاري جاء اليوم التالي مالك حكتي أيا لقاري oo maalinkii ballantu ay ahayd oo in natiijada la tusi doono ayaa la gaaray maalinkaas ayaa timid wa akhraja al-muallim marka معلمكي اللي هو نتيجة لقى سوقايه وأخرج المعلم معلمكي أيا صو صاري أو صو بندقي مجموعة من الأوراق كوح ورقضاء كوح ورقضاء أم ورقضي أروري أيو صو صاري أو صو بندقي فقد قام المعلم معلمكي أيا استاغي أو سميوه بوضع الصفات المذكورة إن أدجيو أما أصار ضمان تلماموينكي لحسي أما لغو شاقي لكل طالب أرضي كستاهي في ورقة أيو كل جي أو كقري بمفردها كل جيد فقد قام المعلم معلمك أيا استاغي أما أسمي بوضع إن أصار الصفات المذكورة tilmaamooyinkii lagu sheegay likulli daalibin arday kasta tilmaamooyinkii lagu xusay oo lagu sheegay ayuu ku dhajiyay fi warqatin bimufradiha warqad kaligeed ayuu ku dhajiyay arday kasta inta tilmaamooyin ee lagu sheegay ee lagu xusay asiga lagu tilmaamay si gaar loogu tilmaamay lagu qoray ayuu ku dhajiyay warqad kasta وبالتالي marka xigtayna أصبح لكل طالب أرضي كستوحى أهاتي أما ويشي ورقة خاصة به ورقة إساق أقارة أيو يشي أرضي كستا ورقة أقارة أيو يشي أو لوقري معانا كان سيفوينكي لو شيء أيو سيقارة أرضي كاسمي عيسى سيفوينك لو شيء أرضي كلو شيء أيو كسو وضا قري معانا كأيها كلا ساري واي arday kastaay maadaama ardayda loo diray in ardayda ugu fiican ay soo bandhigaan tilmaamooyinka ay oo la heli karo ardaygaasna ay soo qoraan oo hore ugu diray macalinku wuxuu sameeyay arday kastaay tilmaamooyinkii lagu sheegay ayuu si gaar ah ugu soo qoray warqad gaar ah ayuu ku soo qoray arday kasta marka waxa uu yeeshay warqad asaga oo gaar ah qaamal muallimu بتوزيع الأوراق معلمك أيها أستاذ مركا بتوزيع الأوراق وراقدها إنه أقيبيه على جميع الطلاب ضمان أرضيدا إنه أقيبيه معلمك ورقدي أيو قيبيه مركا على جميع الطلاب أرضيدا لن أيو أوذا قيبيه متكستاي مركا وحاو يلنا يا هال ورقد أو كقرية مقعيسة ضمان تلماموينك أي سيان أرضيدا كلاء
sidaa waay وهنا marka halkaani badaa waxa bilowday kullu daalibin arday kastaahi waxa uu bilaabay biqiraa'atin in uu aqriyo am aqrinta in uu aqriyo ma katabahu anhu waxa ay ka qoreen zumalaahu saaxiibadiis wax ay ka qoreen in uu aqriyo ayuu bilaabay oo fil fasli fasalka gudiis ah ardayda fasalka gudiis dhigtaay waxa ay ka qoreen in uu aqriyo ayuu bilaabay badaa wuxuu bilaabay kullu daalibin arday kastaahi biqiraa'atin in uu aqriyo oo si gaar u aqristo ma katabahu anhu waxa ay ka qoreen zumalaahu saaxiibadiisa waxa ay ka qoreen oo fil fasli fasalka dhigtaay in uu aqriyo ayuu bilaabay tilmaamooyinkii ay siiyeen ayuu si gaar u aqrisanaa maadaama macalinkana warqadiisa si gaar ah uu siiyay waxa ay ardayda kale ka qoreenna si gaar ah warqadiisa uu soo qoray markii uu aqriyay markii wax ardayda ay ka qoreen warqadiisa oo ka aqristay kaanat nataa'ij marka natiijooyinkii waxa ay noqdeen mubhira kuwa la yaab leh ay noqdeen kaanat nataa'ij natiijooyinkii rasaltigii soo baxay ayaa waxay noqotay mubhira jiddan mid la yaab leh u noqotay mid la yaab leh ay noqotay faqad sha'ara dhulaabu ardaydii ayaa waxay dareentay oo fil fasli fasalka gudihiisa wada dhiganay annahum ayagu laysu dhulaaban in aysan ahayn arday faqad sha'ara dhulaabu ardaydii waxay dareemeen fil fasli fasalka gudihiisa ama galaaska gudihiisa wada dhiganay annahum laysu dhulaaban in aysan ahayn arday bal annahum ikhwa hase ahaatee ay yihiin kuwa walaalo ah inaysan ahaynba arday ay yihiin kuwa walaalo ah ardaynimo kaligeed maahane waa dad walaalo ah inay yihiin ayay dareemeen maadaama mid kastaba ammaan iyo bogaadin iyo waxyaabo meesha lagu soo qoray oo aad ugu farxay wa addaa daalika taa marka waxay dhalisay oo keentay ilaa jacli dhulaab ardayda in ay ahaadaan akthara taqaaruban ku aad isku dhow wa addaa daalika arinta ayaa marka dhalisay ilaa jacli dhulaab akthara taqaaruban kuwa si weyn isugu dhow aad kale iskaga dhow ayay noqdeen taa ay dhalisay وأدى ذلك إلى جعل الطلاب أكثر تقاربا وبالتالي متك حكتنا مد حكتاهي تحقق وحا حقيقوبي الهدف يوركي أم الجددي أي حقيقوبي الذي كان المعلم يرغب فيه تا أو معلم كنا وجعل نتيجة دي تحقق الهدف وحا حقيقوبي الهدف يوركي أم الجددي الجددي وكلها هو الذي كان المعلم معلمك يرغب فيه وجعله معلم كانت حقيقة دي يوم نتيجوينك أما يوركي وجعله أي حقيقة دي معلم معنا سدور ربي أي حقيقة نقطة معلم قدمتي سبوحة إن أو يور أو جارسي أو دن أو كلها إن أو جارسي أردياس أيور ربي معلم مركوحها خبير أو معلمة ذا أما وحبريد ubadka ama ardayda meel fiican ka gaartay aqoontiisa meel fiican ay ga gaartay ayuu ahaa marka hadafkana muxuu ahaa marka huwa hadafku wuxuu ahaa nashrul wad in kala gacayl lagu baahiyo lagu fidiyo labada gaarsiyo iyo mahabbati iyo mahabba iyo jacayl in lagu wada baahiyo bayna dhulaab ardayda dhaxdooda taxaqiq hadafka حقيقة وحواي نشر الود وجعيل كالجعيل إن حريص رحمة إن لو الدقسيو أو لو الجارسيو أو لو عميمه بين الطلاب أرضي الحدود معانك مركوح ربي إن أرضي ذا أو كديكو أرضي السمان أو طالب العلم أيضا العلم بيصود دونتي وضعه أو كودي مالك الدول أصلي الشيء فصل كان أي كود جيراننا uu yahay fasal dhamaantood wada mideynaya ay u wada sameeyeen hal galaas oo ka dhaxeeyo hal macallin oo ka dhaxeeyo miisas qaarkood ay wadaagaan saaxiibo ay yihiin arday ay wada yihiin walaalo ay yihiin taa ayuu marka macalinku wuxuu rabay inuu ka dhacsiyo qulubtooda oo isku furo mahabba iyo raxmadna iyo kala gacaylna qulubtooda oo ku wada beero
marka macallin markaa tahay xisada kaliya inaad qorto kaliya maray mar qaar waxa laga doonay waxa waa tawjiihaad wanaagsan inaad ardayda u sameeyso oo 5 daqiiqo ama adiga 6 daqiiqo ama 4 daqiiqo waqtigaaga xisada kamid ah inaad ardayda wacyi geliso wixii aad ku aragto fasalka iyo waxyaabaha kale banaanka taa ku aragto fasalka banaankiisa aad ku aragto oo kale in ardayda si gaar ah aad uga hadasho qaarkoodna si gaar ah inaad waliba uga hadasho markii banaanka ay joogaan markii fasalka ay ku jirtidna si guud ardayda uga hadasho adiga markaasi arday aan tilmaameynin aad u wacyi geliso 4 daqiiqo ama 5 daqiiqo kamid gaar ahaan waliba waxa aad u si fiican macalinka fawmasterka u ah ardaydaasi ee galaaskaasi fawmasterka ee maamulka xagaasi uga magacaaban inuu ardayda tawjiihaad sameeyo oo yeelo oo ardayda isku xir u sameeyo qaab galaas wanaagsan ay jecel yihiin inuu u abuuro qaab galaaska uu la shaqeeyo qaab galaaskana ardayda uu la shaqeeyo isku xir fiican uu sameeyo ardaydana in aysan gaarin maamul aysan gaarin oo asaga dhaxdan uu ku sugan yahay ardayda si fiican oo maamulku u xiro asigana uu ka dhex shaqeeyo ardaydaasi oo tarbiyo wanaagsan oo u noqdo waalid dhab ah ilaa heer uu gaarsiyo ardayda ay ka wada sheekeystaan marka ay joogaanba iskuulka banaankiisa waa tahay aad u mahadsantihiin inta ayana casharkeena maanta ku soo koobayna idna waad mahadsantihiin meel walbo aad ku sugan tihiinba hal share gareeyo channelka Reexaan channel hala gaarsiiyo asxaabta kale ee danaynaysa iyaguna in ay bartaan luqadda Carabiga idna waad mahadsantihiin markale waxaan leenahay caweysin wanaagsan intaan casharkiis xiga aynu ka gaari doono dhamaantiin waxaan leenahay hurdo caafimaad leh nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.